عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد وحالي هذا عبد الرحمن جاكي كنا مقعدير جاكي كني من وقوي برجع رهان من ديرا كاونتي runtii waxa meesha u soo fadhiistay maanta ma ahan inaan macallin ka hadlo balse waxa jiray Soomaalida Northeastern waxa jiray fikriyaan dabeecad nooc kale oo imaanay taasoo ah qabiilada degan Northeastern dan waxay bilaabeen fikriyaan inay subsadaan calankooda oo macnaha ay leeyihiin qabiil walba calan leeyahay independence ay leeyahay marka fadlan taana marka qoraallo badan waa la wadaagno oo Kenya sida Daily Nation tuko haddana waxaan hadda wixii daawa FM oo maartay aan wadkeedii inuu gaaro marka waxaan rabaa micnaha inaan u sheego sababta ay tahay iyo sababta laantay sababta keenaysa yani dhibka keenaya in calan qof walba uu subsado waa sababta hadda ka jirta Soomaaliya waa u jeedana ma inay dib ka haysto inteeda kale qabyaalada waxay abuuray qabyaalad isnacnimo iyo natilaan ay abuuraysaa ay tan kale la yaqlay waxa waaye diyaar aragtayna dabaaldeg weyn yahay hotel ay dhigan hayaan dib ma la dhigo laakiin waxa waaye calankan ku saabsan yahay wuxuu yahay wuxuu ka tirsan yahay bal aan isweydiino aan daareyntaas weyn waxaan u dirahayaa gobolka Qoyi Bari aan khaas ahaan dhalinyarada 90% waxa waaye waa dhalinyarada wax qabaan qaabiyo wax tan soo marka 90% dib qabiyo dhalinyarada ay sad noqotay soo generation maartay oo jiray malaha marka fadlan waxa aan bariyaa inaad maartay iska dhaaftaan taa waxaan loo daayin dad badan oo maartay aqoon yahan inaan la wadaagno inaan joojino darteed barnaamijkaas marka waxa hataa hal su'aal weydiin haday iga joogtaan madam kuma soo hadlaayo wad aragteen xaflad walba oo qabiil walba oo dhiganaya calan walba oo dhiganaa sijuuyi wuxuu dhiganaa independence day wiilkan ku aragtay odayaal dhaqameed ku aragtay waa may koow culumo ku aragtay waa may siyaasi ku aragtay waa may soo marka dadka ma jooga 990 dhalinyaro ama jira oo dumar oo dhae tamanka kalena waa wiilal yar oo soo raacay Allah waxaan ka bariyaa inaadan aqbalinta idinku maarta fiirinaay dhibka ay keenay doonto gadaal aad ogaan doontaan marka fadlan waan bariyaa waxaan leeyahay dad isku waara noqdo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.